Assalaamu calaykum daawadayaal, waan idin salaano. Waa Abdulmawd Channel aad uga barateen inuu idiin soo gudbiyo dhacdooyinka dunida markaa ugu xiisaha badan. Waxaan haddaba idiin soo gudbin doonaa caaro xooggan oo ka dhalatay is-horistaag uu ku sameeyey madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump shixnad ah alaabaha lagaga hortago coronavirus-ka ee maaskiga iyo gloveska kuwaasoo loo waday dalka Canada. Shixnadaasoo gaaraysa 300,000 oo waxyaabaha isugu jira maaskarada wejiga iyo glovesyada ayaa waxaa u diiday si cad in loo dhoofiyo dalkaasi, taasoo cara abuurtay. Waxaana weli sii socda oo sii fidaya meelo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka cudurka halista ah ee coronavirus, isaga oo sii maraya dhimashada in ka badan 10,000 oo qof. Aqalka maaliyadda lacagta ee dalkaasi ayaa waxa uu ansixiyey lacag gaaraysa 55.5 milyan oo lagu sameynayo agabkaasi. Waxaa kale oo iyaguna sii kordhaya tirada u soo ridanaya dadka uu haleelayo cudurka halista ah ee kusii baahaya dhammaan dunida oo idil. Waxaa kale oo jirta in dalka Talyaaniga uu hoos u dhacay dhimashadii ay soo yaraanayso, walow weli uu hayo halkaasi amaba uu ka jiro kiisas, balse ay ka yar yihiin tirooyinkii hore oo uu ku socday, iyo dhimashadii oo inta ka sii yaraanaysa. Sidoo kale dalka Spain ayaa waxaa laga soo sheegayaa hoos u dhac dhanka kiisaska iyo dhimashada maalinba maalinta ka dambeysa. Aad moodo inuu kasoo yaraanayo cudurkan oo ah mid dhammaan dunida aad ugu fiday ayaa waxa uu fara ba'an ku hayaa qaaradda Yurub guud ahaan iyo dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa laga dhigay isbitaallo macmila jardiinooyinkii waaweynaa ee ku yaalay meelaha ka baxsan magaalooyinka, taasoo aad moodid inuu aad u sii kordhay tirada dadka uu soo ridanayo, iyadoo haddeer uu marayo tirada Mareykanka in ka badan 330,000 oo qof. Tiradaas oo uu noqon ka dhigaysa dalka Mareykanka dalka koowaad ee ugu badnaa oo uu haleelo cudurkaasi dadkiisa. Waxaa kale oo la sheegayaa in kambaniga qaybiya khudaarta cagaaran ee online-ka ee Walmart loo yaqaano in 4 ka mid ah shaqaalihiisa uu haleelay cudurkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo 2 ka midna ay u dhinteen. Kambaniga Walmart oo ah mid iibiya khudaarta cagaaran dadkana ugu geeya guryahooda. Waxaa kaloo iyadoo dunida uu la daalaa dhacay cudurka coronavirus ka socda qaaradda Afrika, gaar ahaan dalka Liibiya, tahriibta loogu sii tahriibayo dalka Yurub, iyada oo tahriibayaal watay doon yar markii ay ku qarqameen badda ay badbaadiyeen markab laga leeyahay dalkaasi Turkiga. Doontaasoo ay saarnaayeen 68 qof, gabi ahaanba 68 qof oo la badbaadiyey iyadoo aan waxba ka dhiman. Waxaana arrintaasi kasoo xigay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa kaloo la sheegayaa in wadamada uu cudurku soo ridanayo uu kusoo biiro dalka Ciraaq, iyadoo la sheegay halkaasi in laga helay ku dhawaad 1,000 qof, iyadoo ay dowladda dalkaasi Ciraaq bilowday inay buufiso dariiqyada ay kuna soo rogto caasimadaha ama magaalooyinka waaweyn dalkaasi bandow si ay uga hortagto inuu faafo cudurkan dilaaga ah ee ku habsaday dhammaan dunida. Iyadoo uu dalka China uu kasoo kabtay guud ahaan cudurkii, magaalooyinka waaweynaana dib loo fasaxay dadka shaqooyinkoodii iyo iyagoo dabaaldegyadoodii kusii guda jira, ayaa waxaa haddana laga soo sheegayaa waa gudaha dalkaasi China in magaalo ka mid ah oo aan ahayn magaaladii uu ka bilaabmay cudurkan, Wuhan ee la yiraahdo Shaoxing, in laga helay 33 kiis oo cusub, taasoo aad moodid in aanu weli ka dhammaan, balse cabsidii iyo baqdintii faraha badneed ee laga qabay cudurkaas dalka China ay meesha ka baxday, iyadoo ay dib u soo celiyeen dhammaan goobihii adeegga bulshadana ay u fasaxeen isu socodkii dhammaan gudaha dalka China. Waxaa kale oo la sheegayaa in labada dal ee ugu horeeya shirkadaha ama kambaniyada shidaalka soo saara ee dunida waa Sacuudiga iyo Ruushka ayaa shir ay OPEC yeesheen waxa ay ku sheegeen amaba ay isku waafaqeen heshiisna ku gaareen inay hoos u dhigaan tirada saliidda ay soo saarayaan maalintii, taasoo sababtay coronavirus oo dhammaan dunida ku haya cabsi awgeed. Ayaa waxa ay isku raaceen labadan dal oo ah labada dal ee ugu horeeya ee dunida soo saara saliidda ee kala ah Ruushka iyo Sacuudiga, ayaa heshiis qalinka ku duugay inay hoos u dhigaan tan iyo inta ay xaaladdan coronavirus ee dunida ka taagan tahay wax soo saarkoodii saliidda marka 3 loo qaybiyo meel.
taasoo uu dalka Mareykankana isaguna uu dhinac kaga jiro heshiiskaas oo isna si lamida u joojinay taas